afuri walaalkaaga Soomaan ay soo qabanqaabisay muasasada Abashiikh Al-Shaanshi ayaa waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho. dadka danyarta ee la gaarsiiyay afurkan ayaa waxa tiradoodu ay gaadhaysay 750 qoys oo ku kala nool gudaha caasimadda Muqdisho iyo gobolada dalka qaar ka mid ah. barnaamijkan oo ah mid sanadkiiba hal mar la qabto ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gobolka Banaadir, odayaasha beesha Al-Shaanshi. ugu horeyn munaasabadda waxa ka hadlay Nabadgelyo oo ka hadlay midnimada beesha Al-Shaanshi. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. aniga warkay madheero marlamaad waxaan leeyahay Ramadan Kareem. anigoo ku hadlayo magaca Reer Sheekh Abba waxaan maanta markhaati ka ahay walaalaheena beesha Abashiikh inay qaabileen walaalahooda oo dhan ah Abashiikh inay hormuud u noqotay Shaanshiyo inay midowdo. geesta kale iyaduna waxa kaasi ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwa Jawaahir Ahmed Baarqab ayaa u mahad celisay cidii soo qaban qaabisay muasasada Abashiikh Al-Shaanshi ee barnaamijkan isku hawshay. xarabna qof walba oo mas'uul ah ganacsatada Soomaaliyeed wax garadka meel walba ay joogaan cid walba iyo goob walbaba waxaan leeyahay walaalaha Abashiikh in ay ka warqabaan sida maanta ay uga warqabaan dhaqaalaha aad u soo jartaan haddii adiga ilmahaaga guri qurux badan ay joogaan haddii ilmahaaga adiga nolol wanaagsan ay haystaan haddii ilmahaaga adiga sinisbariyadii teeskooyada aad uga adeegato waxaa jira kuwa aan adeegan dabka shidanaynin dhar aan haysanin korontada iska bixi karinin ilmahooda awoodin. dhanka kale Axmed Suufi Maye waa mid ka mid ah nabadoonnada beesha Al-Shaanshi oo isaguna hadalka qaatay ayaa ka warramay ujeedada kulankan loo qabtay waxaana uu sheegay in bisha barakaysan ee Ramadaan sanad kastaba ay afuriyaan dad tiradoodu gaadhaysa 700 iyo wax ka badan oo ku kala nool gudaha magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka. waxaan ka baryaynaa in Ilaahay ugu kaalmeeyo inta kadib war hadal waxa uu qaar badan hadalka waxaan tusiyaa wixii hadal ahaa waxa hadlay dadkii ragii iyo hooyay haddana waxaan ku sii dhaweynayaa walaalkayga Abduqaadir gudoomiyaha degmada Xamarweyne Abduqaadir Maxamed Abduqaadir hay tafadal. Abashiikh sana hore waxay afuriyeen qadar gaaraya 620 qoys dalka gudihiisa iyo dibadiisaba. sanadkaana waxay ugu talagaleen 750 qoys inay afuriyaan magaalada gobolka Banaadir waxay ugu talagaleen 450 qoys gaaraya gobolada dalka sida Baydhabo Hargeysa Baraaba. gabagabadii munaasabadda afuri walaalkaaga Soomaan waxaa soo gabagabeeyay gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdiqaadir Maxamed Cabdiqaadir oo ka warramay in beesha Abashiikh Al-Shaanshi ee soo qaban qaabisay barnaamijkani ay ku mahadtay. waxaan rabaa horta waxaa sharaf inoo ah anoo ka tirsan maamulka degmada inaan goobjoog ka ahaado barnaamijkan loogu magac daray afuri walaalkaaga waliba oo si gaar ah reer Abashiikh. jaaliyadaha dibadda ku maqan oo soo qaban qaabiyay in walaalahooda Soomaaliya joogaan xamar kaliya ma ahan Soomaaliya joogaan inay saacidaan waxaan leeyahay afuri walaalkaaga barnaamijkan waa barnaamij Axmed Yaasiin Maxamuud telefishinka Bulsho Muqdisho.